بسم الله الرحمن الرحيم كسو dhawaada tutorialkeeni ka faa'iido aqoon maanta waxaan ku baranaynay recording business transactions inagoo sii wadnaa casharkeeni taxanaha ahaa ee accounting principles of accounting aynu sii wadnay casharadiisii casharkii ugu dambeeyay waxaan ku baranay debit and credits casharka maanta waxaan ku badanaynaa oo isagoo ah chapter 2 ama accounting cycle oo la yiraahdo waxaan ku baran doonaa recording business transactionka sida loo record gareeyo businesska transactionkiisa ama stepska uu sameynayo ama wadada uu soconayo account cycle markaan leenahay sidoo uu baaskilida kale isku daba wareegayo waa bilow dhamaad marka bartaa dhamaysid bisha dhamaysid ama sanadka aad reportka gudbisid haddana marka dambe bilowga waxaad kasoo bilaabaysaa wareegga xaggii hore bilowgii saasaa loo yiri accounting cycle-ka wuxuu ka bilaabmaa analyze garaya marka ugu horeysa sourcing of the documentiga noocu yahay transactionkan wuxuu yahay debit siduu u diiwaangelishanayo credit buu gelaya ma debit buu gelaya ma imisa amount ay gelaya miyuu yaraanaya mise wuu increase garoobaya waxyaabahaas oo marka hore aad analyze garaynaysaa documentiga noocu yahay iyo accountiga noocu yahay marka labaad waxaad sameynaysaa journalize waa diiwaangelinaysaa oo waxaad gelinaysaa meeshii transactionkii aad dhacay marka sourcing of analyzing garayso transactionka la source ayaa la analyze garaynaya kabacdi marka la analyze gareeyo waxa ku xiga journalizing ma waa la diiwaangelinayaa waa la qorayaa iyadoo lagu qorayo journalkina lagu noqonayaa simple journal entry baa la yiraahdaa iyo multiple journal entry labada qaybood baa loo kala gelinayaa marka si loo journal gareeyo journalku waa waraaqtii lagu qorayay ee la gelinayay marka hore lagu taxliilinayay tusaale ahaan cash wuxuu gelayaa debit equipment waxay gelaysaa credit oo kale saas oo kale markaad u qortid entry waxa weeyaan selling equipment markaas oo kale ayaad saas oo kale loo taxliilin markaas journal la yiraahdo waxa ku xiga posting entry to the accounting in the general ledger la yiraahdo general ledger kuna waxa weeyaan marka la soo journalkii marka la diyaar gareeyo journalize-ka la diyaar gareeyo bisha oo dhan journalize ku xudhaya maalin walba waxaad qoraysaa wixii journalize ku xudhaya maalin walba wixii dhaca ayaad qoraysaa soddonka bisha marka dhamaadana waxaad sameynaysaa general ledger wixii baad soo koobaysaa ama t account waxa la yiraahdo aad isticmaalsan baran doono ama journalize-ka general journal-kaas aad ka dhigaysaa iyo wixii waa soo hoos dhigaysaa balance-gii dambe ayaad qaadanaysaa sidii kuwii casharkii hore aan kusoo baranay kabacdi waxaad diyaar gareynaysaa waxa la yiraahdo tarial balance-ga la yiraahdo tarial balance xagga dambe ka qaadan doonaa kabacdi waxaad diyaar gareynaysaa financial statement-ga ayaa diyaar gareynaysaa oo waxa la yiraahdo financial statement report-kii dhamaystirnaa ee aad u diyaar gareynaysay ayaa diyaar gareynaysaa oo laga sugay kadibs markaad halka ka soo meesho waxa cycle loo yiri markaad financial statement aad diyaar gareysid hadana markaad dhamaysid financial statement ka dhimatid report-kaagi waa dhamaysay xisaabtaada xisaab xirkii sanadka soo gudbisid kabacdi bilowaad ka soo bilaabaysaa waxaad ka soo bilaabaysaa hadana analyze gareynaysaa bisha ku xigta ama sanadka ku xiga ama journal saas oo soo marsaa saas u wareegaysa markaa maadaama ay wareegaysaa sidaas loogu bixiyay accounting cycle maanta laakiin waxaan qaadanaynaa debit and credit keenu horan soo qaadanay maanta waxaan qaadanaynaa recording process-ka sida wax loo report gareeyo ayaan baranaynaa oo ugu soo horeeyo markaad record gareynaysid journalka oo ugu soo horeeyo warqadii journalka wax lagu qorayay ee lagu kala analyze gareynayay ay ku jirto markaan journalka ka gudubno waxaan u gudbaynaa ledger baan sameynaa oo qaybinayna marka journal ledger means labadan waxa u dhaxeeya farqiga waxa weeyaan mid waxa weeyaan way kala daadsantahay imika account receivable ama cash oo kale cashkiiba ilaa bisha koodeedii ilaa soddonkii kale imika cashna waa laga qaatay cashna waa laga baxaya marka uu kala filiqsan yahay laakiin mid walba waad qoraysaa mar walba markuu dhaco maalimadkii dhacayso daily activity-ga waxaad qortay ayaa la yiraahdaa journal monthly marka ledger-ka aad qoraysid waa sanad marka wixii oo dhan isku soo wada kadib bishii wixii cash ka baxay oranaysa cash-ka iga baxay waa inta cash-keena soo galayna waa intaas totalkii guud markaad sii kala jirtay wala xaraa ku soo baxday inta taatlayna markaan cash hayna markaan kala jirtay weeyaan 3 steps ayuu maraya markaan la sameynayo
journalka saddex wadu maraya marka ugu horeysa waan sidaan sheegay waa inaad analyze gareysaa each transactionka wuxuu yahay waa inaad baadhaa marka lagu raahdo waxaad markaad soo iibsatay company-ga haddii uu soo iibsado computer hadduu equipment soo iibsado ama computer oo soo iibsado computeriska uu soo iibsaday waad eegaysaa computerka maxaa lagu soo iibsaday cash waxaan soo iibsanay computer marka ugu horeysa step koowaad waa analyze gareynta transactionka la baarayo ee la eegayo noocu yahay marka imika haddaan soo iibsano tusaale ahaan haddaan soo iibsano computerkiis waa la soo iibsano lacag baa baxday labaduba waa asset marka ugu horeysa inaad wax horta ogaataan labaduba waa asset maadaama asset tahay lacagna way naga baxday oo computer baan ku soo iibsanay oo haddii la naga soo iibin $500 ba computerkii desktop cashkiina khasnadeenu ka baxaya marka cashkii marka uu yaraanayo oo assetku yaraanaysa xagee ahayd creditku inaad dhigtaa cash xaga computerkiina debit buu tagay marka waa inaad soo ogaataa marka ugu horeysa saameynta marka labaadna waxaad sameynaysaa intertransaction journalkii ayaad gelinaysaa journalku waa labada column oo ka kooban debit iyo credit iyo magacii iyo datekii ayaa la yiraahdaa journal warqada ka kooban intaas la yiraahdaa marka saddexaadna waxaad sameynaysaa waxaad u bedelaysaa transfer waan ku sheegay marka imika xabad baan u gelinay marka hore ma transfer journal information to the ledger account wada gelinaysaa cashkii marka soo iibsatay imika computer cash ba soo iibsatay cash kala iibisay waxa kala hadana waxa soo iibsatay cashkii baa siisay kiradii baad ku bixisay cash waxa soo dhan baxa dhow cashkii bay ka go'ayeen debit and credit-kii marka kala jirtay balance-ga soo baxa ayaad ledger account ka gelin la subscribe adiga oo taabanaya halkaas bartaayar baa soo klik gareynaysaa marka soo klik gareysid si aad ula socotid wax kasta soo gelino journalkii markaan soo galno journal aan dhahno journalkan sameeyno oo warqadii aan ku qoraynay ku diiwaan gelinaynay ayaa la yiraahdaa journal marka ugu horeysa waxay kaaga baahan tahay journalku waa maxay journalku waxa weeyaan journalkan aan sheegayno waa transactionka wuxuu ahaa daily activity wixii maanta dhacayay ee bilowga initial recording bilowga diiwaan gelinta ugu horeysa marka hore la sameeyo la yiraahdaa initial recording in chronological sida u kala horeeyaan chronological order-ka iyadoo loo qorayo sida u kala horeeyaan in journal before buying transfer to the account intii aan loo bedelin accountiga ama aan laga dhigin ledger account weeyaan insurance ayaa la yiraahdaa initial recording bilowga la marka ugu horeysa warqada la gelinayo la yiraahdaa company kastaana wuxuu leeyahay general journal oo ka kooban general journalkeenu waa ka guud wixii ay ku wada jiraan journalada oo dhan journal kaliya waa ka xabad kaliya laakiin la koobay laakiin journal kaliya waa markaad gebiga form ku warqad dheer ku soo qortid wixii journal kaliya company kastana uu leeyahay waa inuu ka koobnaado marka general journalkeenu wuxuu ka koobnaanaya ayaan qornay date-kii maalintii bishii koowaad hadday dhacday wixii dhacay date-ka transaction-kan dhacay ama alaabta la iibsaday ama alaabtan aad soo iibsatay ama alaabtan ay si noqotay waa inaad qortaa date-kii marka labaadna waxaad qoraysaa accounting title-kii baad u sameynaysaa accountigan muxuu ahaa saan tusaale ahaan ku sheegay imika markaan qorno bishii kowdeedii February 1 markaan dhahno February 1 baa tiri waxa dhacay company wuxuu soo iibsaday computer buu soo iibsaday computerkaas uu ku soo iibsaday cash marka waa inaad cashkii accounting title-kii waa inoo samaysaa waa maxay accounting title-ka samaysaa waa cashkii maxaa ku dhacay wuu yaraaday oo waa la bixiyay lacagtii computer baa lagu soo iibsaday marka cashkii wuxuu qorgalayaa credit computerkiina uu soo galay meesha oo assetkiisii uu inoo increase gareynaya marka isna debit buu galaya marka saas waa inaad accounting title noqoto explanationka waxa weeyaan marka title transaction-kii aad qortay ayaad xagga hoose ku taxliilinaysaa ama ku macneynaysaa oranaysaa purchasing computers waxa la soo iibsaday computer marka waa la fahmay haddii 500 maxaad ku bixisay lagu yiraahdo hadhowaadna waad xasuusanaysaa waxaan ku bixiyay computerkaas la soo iibsaday tadambana waxaa sameynaysaa reference number-na uu leeyahay reference number-kaas wuxuu noqonayaa number-kaad ku tixraacaysid oo waxa weeyaan cash-ka oo kale amba number gaar ah u samaysanaysaa amba number-kaad ku tixraacaysid oo bishaas number 7 amba invoice reference-ka soo iibsatay geli kartaa reference ayaa soo gelin kartaa too many columns waa inuu reference waa 3 columns ma markaas column-ka afraadna waa inuu noqdaa
too many columns laba column marka halka laba column waa noqonaa oo la gelinayo labadan column waxa ku qornaanaya debit iyo credit baa lagu qorayo oo lacagtii la gelinayo marka journalkii marka sababta imika haddaan soo qaadno journal waxa la sameyn karaa safar halba noqonaya wax fara badan oo significant contribution to the recording process wixii dhaco dhan in la soo diiwaan gelinayay journalkii weeyaan ayuu sameynayaa marka isagoo aad u diiwaan gelinaysa xabad in one place meel kaliya taa mid walba dhigaysid aad warqad ku qoraysid isagoo saameynaya transaction-kaaga mid walbana haddana transaction-kaaga uu saameynaya oo uu sameynaya sida u kala horeeyaan waad u qoraysaa waniga hore soo sheegnay marka dambana wuxuu ka caawinayaa wuxuu ka hortegayaa khaladaadka debitka iyo creditka businesskii ku dhacay haddii ay marka la isbarbar dhigo debit iyo creditku mar walba waa inay isleekaadaan baan niri markaad accounting ka joogtid haddii isleekaan waayeen ka caawinaysa oo debit iyo creditkii baa la isticmaalayaa marka haddii debit iyo creditkaaga isleekaan waayeen transactionkaad samaysay ama journalkaad samaysay waa ka khalad dib badan noqonaysa waa inaad xisaabtu isku mid noqotaa inta debit galaysa inta credit galaysa inta ka baxday iyo inta ku soo gashay waa inay isleekaadaan saas oo kale marka nimka journalizing marka la sameynayo waa marka la diiwaan gelinayo magac ahaan baa laga dhigay imika waa inta marka la gelinayo transaction data in the journal is known as journalizing wakaas aan ku sheegay weeyaa marka la gelinayo la bilaabayo interkii la bilaabayo hawshii waraaqda la gelinayo wadaonaysa lagu qoranayaa samee journalize marka journalizing bay noqonaysaa waxay noqonaysaa non kii bay noqonaysaa magac ahaan imika waxaad u sameynaysaa separate journal entry mid walba mid gaara oo inter u gaara journal u gaara ayaad ku sameynaysaa for each transaction kaliyata mid walba bishii koowaad intaas dhacday bishii labaad waa mid gaara space baad u siinaysaa talabaadna waxaad sameynaysaa intaas sameynaysaa complete entry consistency mid walba waxaad u sameynaysaa inay ka kooban tahay intereskii uu dhameystiran yahay saddexaadna waa date of transaction mid walba waxaad qoraysaa markaad journalize ka sameeysid date-kii baad qoraysaa number 1 ka waa inaad enter gelisaa transaction marka koowaad marka labaadna waa inaad kala saartaa marka saddexaadna waa inaad dhamaystirtaa soma marka koowaad waxaan gelinaynaa date-kii u dhacay transaction waa date of transaction kan qorina marka labaadna waxa la gelinayaa accountiga nooc yahay accountigaagan ayaad gelinaysaa ma cash ba ma account receivable ma liability ma account payable ba wixii aan koonadii oo dhan ayuu gelinaysaa ku yahay marka saddexaadna waxaad gelinaysaa debit iyo credit lacagta amountiga inta galaysa ayaad gelinaysaa marka saddexaad waxaad sameynaysaa saddexdaas step u maraya marka saddexaadna waxaad sameynaysaa brief explanation of transaction-kaad explain garanaysaa sharaxaysaa wuxuu yahay saan ku sheegay marka tusaalihii hore aan soo qaadanay computer buu company-ga soo iibsaday computerkii $500 baa laga siiyey computerku markuu aad soo iibsatay keentid warshadaadii asset-kaagii buu noqday asset-kaagii way increase garoobaysa marka asset-kii increase garoobayso wuxuu noqonayay debit-kaad gelinaysaa $500 cashkii maxaa ku dhacay waad bixiso computer baad ninkii shirkadii kala siisay way decrease garoobday markay decrease garoobday way ka baxday maadaama ka baxday waxay gelaysaa credit cash assetku markuu yaraadana wuxuu gelayay credit xagga credit-ka gelaysaa markaas transaction-kaagii labada step way marnay bishii koowaadna way dhacday February labadan transaction markaa amountigina meesha 500 baan gelinay amountigina meesha 500 ayaan gelinay accounting waxaan u sameynay accounting magaciisu waxa weeyaan cash iyo waa computer iyo cash kabacdi brief explanation waxaad ku qoraysaa xagga ugu horeysa weeyaan transaction-ka tusaalan oo ku tusi doonaa sida u dhacayo waxa lagu qoraysaa purchasing computers sidoo kale imka tusaaleeysi waa kan haddii doona habka loo qorayo journalizing loo sameynayo waxaad qoraysaa internet of data column-ka marka ugu horeysa waxaad qoraysaa horta journal warqad la yiraahdaa wax lagu sheegay journal warqad noocan oo kala samaysanaysa oo inta soo xaraf ka kooban oo ku qoran title-ada intan kale way isbedeli karaysaa command ku jirta laakiin waxa ku muhiim ah inaad qortid journal G1 waxa weeyaan journal 1 markay fara badan tahay 6 bilood ama 5 bil kaliya la soo xisaabiyo maalintii kaliya taatu transaction-ka fara badan wixii laga iibsanayo fara badanayo uu fara badanaya marka waa January 1 ama maalintii journalkii koowaad weeyaan jacwada waa intaas waxay tagtaa ka sar waxaad ku qoraysaa ja iyo 1 waa journalkii koowaad date-kii waa inuu ugu horeeyaa saddexdii qaybood oo ka kooban afartii qaybood
وشنتي قيبونات وككوبنا وحويان أنت ديت كي مركو كورس كلام كورس ديت بدو بحسن سا مرك لبعضنا واحد قرنا سا أكونت تيتر كأي إكسبلانيشن كيس آيات كورس كان واحد قسم سنة سا إكسل كأما ورقة طبعا آيات قسم سنة سا أم مركانت مانوال كجلني سدويان إكسل كات كودي أرجع سنة سا يلا سدنا قرن هديك لأن بوجاك سنة دي أرجع سنة آيات كده كويس دي بسنة سا marka ku xigana waxaad qoraysaa reference numberkaaga oo weeyaan oo ku tusi doona reference ku xayeen oo ku sharxi doona kadibna debitkii iyo creditkeeda qoraysaa marka inta gelisid ayaa eeganaysaa transaction ka dhacay hadaba transaction ka dhacay imika transaction keeni soo dhaafnay 10keeni hore McDonald's company gu furtay wuxuu ku bilaabay September waxaad qoraysaa date-kayga ama ku waraysaa qodhigsaas xilliga la bilaabay transaction ku dhacay 2002 September 1 buu dhacay cash buu samaystay cashkaas wuxuu cashkan waxa investing buu ku sameeyay businesskiisa ku invest garastay cashkii marka waxaad qoraysaa cashkii marka la invest gareeyo lacag baad company wuxuu noqonayaa way increase garowsa cashkaagi marka cashkii debit buu noqonayaa debit buu saab noqonayaa McDonald's capitalkiisa hantidiisina maxaa ku dhacay maadaama lacagtiisa barbixiyay oo invest garastay oo lacagta bixiyay way yaraanaysaa markay yaraato waxay gelaysaa creditkiisa isagana amba way marka capital tahay way capitalku waxay ka increase garoobeen ama normal balance-gii 10kii hore soo dhiganay waxa weeyaan credit labadoodu marka waa increasing bigu jiraan kana waa increasing kana waa increasing maxayna transaction explanation kiisina waxa ka soo waa investment in business cash markan uu soo iibsaday equipment uu soo iibsaday 10ka sharaxinaanba computerkii kale halkaas oo kale wuxuu date-kii loo qorayay isla maalintaas uu soo iibsaday date-kii maad qoraysaa isla maalintaas ayuu equipment soo iibsaday oo 7,000 cash bay hay'adu bixiyay 7,000 waxaanu explanation keeguna waa purchasing equipment for cash alaab lagu soo iibsaday weeyaan imika markaan taxliilino sheegno wakaas marka ugu horeysa waa inaad date-ka gelisaa transaction-ka marka labaadna waa inaad gelisaa the debit account title is enter extremely left mar walba waa inaad inta wax weeyaan markaad qoraysid cash iyo ama equipment iyo cash erey magaca aad gelisid debitka hore liftiga ayaad qoraysaa marka aad gelisid credit-kana oo waxa ahaa debitku maxay ahayd liftigaad u badanaysaa marka qoraalka ka cash-ka aad gelinaysidna hore u soo dhigaysaa in yar baad hore u soo dhigaysaa waxaad ku qoraysaa right-ka ayaad u turkinaysaa sidaas weeyaan markaad u qoraysid magaca qoraalka qoraysid weeyaan si loo kala garto ku debit iyo credit bay yahay sida imika tusaale ahaan marka cash-kaas aan sheegnay cash-kaas marka ugu horeysa oo debit waxa hore u baxay markuu cash yahay markuu credit yahayna hore u soo durkaya sidaas oo kale ayaad u qoraysaa adiguna amount-ka debit iyo credit-ka ayaad gelinaysaa amount isku mid ah marka isku mid ah oo isla kaanaysa isku mid ma noqonayso transaction-nada qaar baa ka badnaanaya kala yaraanaya laakiin total-ka marka la isku geeyo labadan dhinac waa la isbarbar dhigo oo inay isla kaadaan imika marka saa u dhignayno debit-keeni iyo credit-keeni waa inay isku keen leekaadaan haddii transaction-ka gebigiisaba journal-kaaga aad isku soo geysay debit iyo credit bisha 31 cisho dhan ama 30 cisho dhan bisha dhan waa inay isleekaan haddii isleekaan waayeen waxba ka qaldan explanation-ka transaction-kana waa inaad samaysaa explanation-ka ku samaynaysaa waa qaybta hoose ee investing cash aan leenahay waa sharaxaadii aad inaad ka bixiso waxaan u bixiyay si aad ku ogaatid oo labada aan asaanka koobada saarnay waa explanation aan sharaxaad la bixinayo oo la siin wuxuu yahay transaction kala sheegayo mar walbana waxaad u dhaxaysiinaysaa asaan ku sheegayay oo 10ka hore soo rognay space-kaas aad u dhaxaysiinaysaa transaction journal-ka markaad qoraysid waxaad u dhaxaysiinaysaa space-ka si aad u gelisid mid walba unique buu ahaa intaas sagaas kale waa space-kaas waa inuu dhaxeeyaa labada journal imika bisha koowaad oo kaliya ayay dhici kartaa laga iibsan karaa 30 shay ama 100 shay 100 shay halkaas mid ku qoraysaa laakiin mid walba waa inay isgaab ka yar u dhaxaysaa space-ka ama banaan inta yar banaan waa inay u dhaxaysaa meesha banaan waa inay u dhaxaysaa aan ku sar galaynay halkaan goobada galiyay banaan waa inay u dhaxaysaa column-ka markaan nimaano column-kan refer buu taagantay ref taas waxay u taagantay reference tixraac gobolka marka tixraac la faanayo tixraac aan sameynayno waxaan isticmaali doonaa later casharada soo socda ayaan ku isticmaalaynaa waxay yihiin transferring
marka loo bedelayo reference-ka ayaa laga soo tixraacaa marka casharada hore dambe reference waxay tahay ku sharxi doonaa reference-kaas number journal markaan leenahay sidaan hore usoo sheegnay waxaa jira laba simple iyo compound journal entry weeyaan simple-ku waa kii fududaa compound-kuna waa kii adkaa marka simple-kii hore waa kii aan imika soo baranaynay kuwan imika waa simple la yiraahdaa simple journal baa la yiraahdaa kuwan kan aan hoosta ku jira imika aan baranaynayna waxa weeyaan compound journal waxayna ku kala duwan yihiin kan imika aan kalinay waxayna ku kala duwan yihiin laba eray iyo wax ka badan ayaa debit iyo credit galaya marka uu yahay compound markuu yahay simple kana hal account sida tan oo kale hal account iyo hal account uun baa galaya debit iyo credit-ka laakiin markuu hal account ma galaya debit iyo credit-ka laakiin markuu in ka badan hal account uu sameeyo only two account uu sameeyaa ma laba waxa weeyaan simple entry weeyaan markuu only two account laba account oo kaliya uu saameyn ku yeesho sida delivery equipment ama cash labadaas kale markuu sameeyo waxa weeyaan simple account markuu uu multiple yahayna wuxuu ku sameynayaa 3 or more account buu sameynayaa 3 or more account markuu ku sameeyona wuxuu yahay oo uu noqonayaa compound entry saalihiisuna waxa weeyaan delivery equipment-keenu waxa weeyaan 334 cash bayn ku bixinay bad 8 kun note payable ban deyn bayn ku bixinay inta kalena waxaan ku raynay 6 kun waxaan ku bixinaynaa waxaan ku keenaynaa noo qor warqad bishii markay dhamaataan ku keenaynaa deynaan markaas oo gaari aan iibsanay weeyaan purchasing track for cash and note payable labadii waan ku iibsanay deyn iyo note baan ku iibsanay labadii markaas waxay noqonaysaa 3 account ma noqonaysaa delivery equipment-giya cash-ki iyo note payable-ki saddexdaas marka waxa la oranayaa compound journal ay la oranayaa journal wax kale ma aha waa warqadan journal-kan inaad dad fahmi weyd journal waa warqadaas la gelinayo ee afarta ka kooban shanta title lixda title journal-ka general 1-ka iyo date-ka iyo account title-ka explanation-ka iyo refer-ka iyo debit iyo credit ayaa la yiraahdaa journal marka soo gar waa warqada journal-ka ee la yiraahdaa journal marka saas 1 2 3 marka saas saddexdaan u sameeyno ay noqonaysaa journal noqonaysaa sidaas saddexdaas markaas noqonaysaa compound journal si waxa jirta hab haddii aad diiwaan gelinaysid noqonaysa qalad marka diiwaan gelinaysid marxayaan this is wrong format haddii aad qaab weeyaan qaabka imika oo kale hadaad u qortid waxa weeyaan qalad bay noqonaysaa debit-ka iyo credit-ka waa iswada raacinaysaa credit-ka iyo wixii debit-na waa iswada raacinaysaa isku mar baad qoraysaa wixii credit-kana mar baad qoraysaa laakiin haddaad cash-ka qoratid equipment-gana dhexda gelisid cash-ka labada kalena hareeraha gelisid qalad bay ka noqonaysaa waa format-kaas uu ka qaldanay oo waa inaad saa u qortaa oo aad mid computer equipment-ga wada gelisaa debit haddii kalena labadan aad debit soo wada gelisaa isagana xagaa gelisaa mar walba waa isku xigsiinaysaa kuwa isku badan marka laakiin sidan oo kale isku dhex daadinaysid taas ku dhex daadin weeyaan hadii kale ka qalad buu noqonaysaa format-kaas qaabkaas qalad buu noqonaysaa qaabka imika aanu go'aamanay hadii saa aad u qortid oo qalad bay noqonaysaa wax dhibaato ma jirto way saxsantay oo debit credit-kaagana ku saxsantay laakiin systemkii bad yara qaldaysayo equipment-gina waa inay aad sareysaa debit-ka mar walba waa inaad sareysiisaa marka ugu horeysa aad marka ugu horeysa waa inaad record garaysaa aad gelisaa markaas debit casharka ku xigana waxaan qaadan doonaa lecture halkaas aan kusoo gabagabeynaa tutorial-keeni ka faa'iido aqoon fadlan ka faa'iidaysi wanaagsan and subscribe and share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.